Hi, welcome back to my channel. This is Rabab Sabriya. Thanks for coming back. And I'm making maanta waxaan sameynayaa afur yar oo fudud oo halkan waxaan ku haystaa garab aan biyo kulul milix iyo khal ku dhaqay. Waan maxaa la dhihi jiray saas hadda u arkaysiin kaamirada oga arkaysiin baan u maxaa la dhihi jiray daldalool yacni oga sameynayaa. Hadhow soo spiceski juicekii waxa dhanba ay gudaha ka galaan oo qallayl gudaha oga noqonin. marka hadda spiceski baan sameysanana waxaan isku dhex qasqasayaa netusaya magacyadooda ma wada xasuusto laakiin sida aragtiinba waa peri seasoning steak seasoning turmeric adu spices ka jeceshahay dhan haysatadaad isleedahay hilibka wuu ku fiican yahay dry thyme boy hadda waxaan ku daray turmeric weeyaan taasi hal xabo maxaa la dhihi jiray cinnamon stick ah just for the smell like yani carafta lemon juice waxa weeyaan liinta juicekeeda baan ku daray halkan waxa weeyaan raqayga already sameysan ama hadaad doontid waad sameysan kartaa soo yacni flavor iyo color yaro macaan ugu yaalo kaasna waa steak seasoning kulli intaas dhan baan isku dhex qasayaa anu spiceski waxa waan jeclahay spiceska zaaid baan u jeclahay spiceska hadda waa khal way waxaan ku daray marka inta markaas iskugu dhex qastid si fiican iskugu dhex qas ama brush ba isticmaali kartaa ama gacmahaada isticmaali kartaa si fiican gudaha uga gelgelisid meelaha dulduleela insha Allah wakaa steakeni dulduleelkiisu waa weyn yahay sidoo flavorka iyo spiceska iyo ugu dartid xagaana waa basbaas fresh toon iyo garlic iyo coriander iyo fresh maxaa la odhan jiray basbaas marka hadda marka ugu horeyso brush baan ku bilaabay hore gacmaha kale ma gelin brushka saas ugu mari saa meesha kaamirada ka aragtiinba waa juicy already asagoo weli karin baa ka dareemaysaa asagoo weli karin oo maxaa la dhihi jiray oven waxna la gelin baa ka dareemaysaa colorka uu yeelanayo because waa flavorka iyo spiceski waxa spiceska anusa hadda ka horna igu sheegay zaaid baan u jeclahay inta spices guriga ii yaalo waan isku dhex qasaa wax kastana waan ku darsadaa waan gediyay hadda sidii baa haddana u marinayaa brushka kula marinayaa sidoo hadhow yacni uu juicekii waxaa dhanba uu ugu jilco uu ugu dhex karo sidaas arkaysiin weli brushkii aan ku wadaa hadda korkaan uga shubay spiceski dhan korkaan uga shubay marka hadda saa uga shubo korka waxaan gacmaha la galay glovesna waan xiranahay choicekaaga weeyaan hadaa gloves xiranaysid iyo hadaa iska daynaysid maybe personally waan jeclahay gloveska rabin farahaaga inay color kale kaa noqdaan gloveska way iska fiican yihiin xiro hadaad jaanis u heshid ama hadaad gloves haysatid ama guriga ku yaalaan marka wakaa hadda si fiican baan u dhexgeliyey u dhexmariyey wax kasta inta dhexmarin karo waan dhexmariyey maxaa kan waxaan ku haystaa liin toon iyo sanjabiil iyo hal xabo basbaas cagaara iyo hal xabo basbaaska casaanka ah baa si yar u jarjaranayaa liintana hadda saas u jarjaranta u jeedtiin waxaan kasii dhigayaa laba jab oo kale aan kasii dhiganayaa marka wakaa toontii wataasaa toonta ma jarjarayo mana tumayo sidaas un baan u crash gareynayaa markaa crash gareysid meelaha dulduleelo oo bahalka ka dildilaacsatay ama ka daldaloolisay baa dhexda ka gelgelinaysaa wakaa toontii hadda toontii waan ugu hormariyey toontii meel kastoo space leh ama aan arko baan saas u dhex gelgelinayaa hadhow flavorka iyo maxaa la dhihi jiray iyo carafta waa yaabaysaa basbaaskii cagaarka iyo basbaaskii casaanka korka uga daadiyey sanjabiishii oo jarjaran ayadana ma tumin waan jarjaray un gingerkii haddana waan sii yaryareeyay wax yar ansaas korka uga daadiyey iyo corianderkiina wataas ayadoo jarjaran ayadana ma tumin sideeda ayadoo ah oo korka uga daadiyey
وكاسا ما شاء الله تبارك الله ساسو كسو بحي marka insha Allah ovenka gelinaysaa 1 saac ilaa 1 saac iyo bar waqti fiican sidoo si fiican iskugu karo adu markuu 3 daqiiqo ku jiraba fiiri ovenka foil baan ku dadayaa foilka markaan ku dado baan maxaa la dhihi jiray ovenka already ii shidnaa ii kululaada dhex gelinayaa zaaidna ha ugu dheereen zaaidna ha ugu gaabin dhexdhexaad un baa geeyaa xagaan waxaan ku haystaa bariis 2 koob ah bariiskii waxaan ku daray biyo karkarayo katalka ah waan kula dhigay adu muddo ilaa 1 saac marka bariiska saas biyo kulul ugu dhigtid hadhow karis badan kaaga ma baahno marka waxa dhan aad isku dardarsatid karis gooniya yani oo biyo badan iyo waxaas uma baahna easy buu ku noqonayaa halkan waxaan ku haystaa chickenkan waxaan u sameynayaa asagana spices gooniya spiceska waxay ka kooban yihiin insha Allah waan ii sheegi doonaa waa jerk seasoning ka zaaid baan u jecelahay maxaa la dhihi jiray chicken seasoning wax kasta waan isku dhex qasaa ilaahay baa runta jecele turmeric baan ku darayaa waxaa kaloo ku darayaa thyme waxyaalo badan baan isku dhex qasaa adu flavorkaada adaa garanayay waxaad jeceshahay so inta adu chickenka waxaa waay chili flakes chicken seasoning way taa family chicken seasoning kale oo nooc kale ah ayadana iyo in yar waxaan ku daray juicekaas lemon juiceka as well maraqagina waan ku daray dhibic yar peri seasoning intaasaan isku dhex qasayaa waxaan ku darayaa oo kale coriander waxaan ku daray iyo butter yar saliidi waxaas kale kuma daray butterkaas un baa 1 qaado butterkaas ku darayaa markaan ku dhex daro un baa gacmaha la geliyaa si fiican iskugu dhex qasayaa insha Allah waka butterkii seasoningkii corianderkii turmericii wixii dhan magacyadooda ma soo koobi karo aan saas iskugu qasayaa maxaa la jira duu kaayar adkaado soya sauce yar ku qoyso ama liintii biyaha ahayd ama liin caadi oo fresh ah ku miiro saliid yar baan ku dhibciyay hadda waxaan siri wax yar dufanka ku yar hadhow ma rabo inuu qalalo chickenka wakaasa nice and soft uu noqday paste ah waka chickenkii waa mid wata thigh-kiisii iyo mid kaligiis ah magacyada si fiican ma garanayo Soomaaliga lagu sheego laakiin waaba aragtiinba waa 4 xabo noocaas ah iyo 2 xabo noocan isku dhagan ah marka seasoningka ha uga naxin si fiican uga mari hadhow juice un bay u noqonaysaa dhibaato kale uma yeelayso flavor way u yeelaysaa asagoo soft ah oo bone-ka ka dhacaya buu kaaga soo baxayaa ovenka hilibkii asaga isku marba ovenka gelinaya laakiin of course hilibkii chickenka isku waqti ma karaan laakiin chickenka naftirkiisa xataa up to 1 hour was kaga deysan kartaa haduu low heat ku yahay ovenka around the same time baa ala kulli xal labadooda isla soo saaraya wakaas chickenkeegi flavorkiisa waad ka arki kartaan kaamirada already soo juicy u yahay hadhowna markuu soo baxo waad arki doontiin insha Allah wakaas si fiican isku dhex geli warkaas ma sha Allah tabarakallah asagana waan daboolayaa waxaan ku dadayaa foil sidoo asagana juicekiisii wixiisii gudahiisa ugu jiro foilkaas caadiga oo normalka aldiya baan isticmaalaa marka foilka ku dadatid ovenkii already ku shidnaa asagii hilibkii isku mar baan gelinayaa insha Allah marka halkan waxaan ku sameysanayaa khudaar ovenka asagana aan geliyo oo like vegetable isku dardarsan oo kala nooc sida basasha maxaa la dhihi jiray adu vegetable yaal oo kala nooc gaar noqda codkayga ugu go'aya waa basal waa barbarooni ay nooc courgette isku daray seasoning baan ku daray saliid yar wax kasta xagan waxaan ku haystaa saladka inay saaribta u sameysan kartaa salad wax kasta step by step hadaan ii tuso videoga zaaid u dheeraanayo saad waxaan ku darayaa waan diyaarsanayaa ayada fridge-kan iska gashanaya insha Allah
kan waxaan ku haystaa juice yar oo macaan oo labadaas liin ka kooban, liinta macaan, liinta labada liin ee dhanaan iyo mint. sidaan u sameynayno waan tusayaa. liimaha saas xagaas ugu miiranayaa. liinta intaan jarjaro ma rabo inaan shiido, so intaasoo liin markaa xagaas ugu miirto juicekeeda kala baxo. waa liinta macaan adi 4 xabo 2 xabo qiyaastaada sida hadba u rabtid inay biyaha ku bataan. xagaas ugu maxaa la oran jiray ugu miiraysaa. iyo liintii kale, liintii cagaarneed, liintii dhanaaneed, lime iyo lemon baa la kala dhahaa. marka xagga ugu miirto juicekii waxa dhan kala baxo insha Allah. ma arki doontiin wakaa juicekii waa kala baxay. waxaan ku shubanayaa blenderka aragtiin baa ku shubanayaa. marka blenderka juicekii intaasoo liimood ahaa isku darsado, mintigii baan ku ridayaa iyo sokor. mint iyo sokor baan ku daray. mint iyo sokor markaan ku daray insha Allah waan isku dhex shiidayaa intaa si fiican. markuu isku shiidmato soft noqoto ayadoo wax lahayn baa waxaan soo qaadanayaa weelkii eberka ahaa. weelkii baa waxaan ku dhex ridanayaa frozen patties. aduu vegetablekas frozenka ku dhex ridanayaa. juicekii baan korka uga darsanayaa. markaasna fridge-ka gasho. waa wax yar oo macaan oo vitaminyaal badan leh oo nice ah. wakaasa juicekii masha Allah tabarakallah. haddana waxaan sameysanaynaa bariiskii aan hadaay 1 hour ago meesha ku shubay. wakaas wuu soo baxtay bariiska. wakaas 1 hour buu ii radsanaa, biyo karkaraya ku radsaday. digsi baan soo qaatay. hadda digsiga waxaan ku shubay saliid. digsiga waa digsiga bariiskaan ku karsan lahayn. basal, toon iyo kabsar caleen intaas ku darsanayaa maanta insha Allah. bariiska uu noocyo badan yahay. maraq baa ku karin kartaa hadaa rabtid. hadaa rabtidna stock baa ku karsan kartaa. anigu markaan maanta stock bay iga tustay inaan ku karsado. soo basashii saliidii baan ku daray. saliid ilaa basasha brown ka noqonayso isku dhex shiil. wataa brown bay noqotay. ma rabin inaan videoga nigu dheereeyo. basashii wataa brown noqotay iyo saliidii si fiican isku dhex geli. markaasna toontaadii iyo kabsar caleentaadii korka uga darso. isku dhex walaaq intaas. marka isku dhex walaaqdid xawaajiyaashaadii iyo waxaagii waa ku darsanaysaa. markaan xawaajigaas marwo waa xawaajiga bariiska aan ku darsado, bariiska loogu talagalay. hadaa rabtidna xawaajiyaal kale oo adiga samaysatay isku dhex qasatay waa ku darsan kartaa. laakiin xawaajkaas iyo milix yar iyo waxaan ku daraa intaas arkaysin digsiga ku jirta. si fiican intaas markaa iskugu dhex shiishid waa aragtiin brown bay noqotay. mana gubanin. hadda waxaan ku darayaa milix yar ama cusbo hadba saa u taqaanid. waxaa la jira bariiskaygii wakaasaa ii radsanaa 1 saac. bariiskii baan ku darsanayaa. hadda intaas baan isku dhex walaaqanayaa. si fiican iskugu dhex walaaqanayaa. hadaa rabtid coconut milk baa ku darsan kartaa. hadaa rabtidna wax ku darsanta biyo caadi oo katalka ku karkarsatay. laakiin aniga waxaan ku darsanayaa vegetable stock aan biyo karkaraya hadaay ku ridiyay ku dhex walaaqay baan ku darsanayaa. iyo biyaba haday intaas ila ekaan weydo biyaha ha ku badinin because bariiska already wuu radsanaa, already wuu jilcay. so intaas xataa haday tahay way kugu filan tahay. laakiin hadaa istiraahdi kuguma filno bariisku ka adkaanaya biyo yar. waxaan dhihi jiray oo kulul korka uga dar. wakaas bariiskii waxaan ku duubayaa foil. waka already wuuba karayba. wax waqti badan uma baahnayn. waan ku gaabiyey asagoo wakaasaa u kala furfuran. maasha Allah tabaaraka raxmaan wuu soo baxay. karis badan uma baahnayn alxamdulilah. hadda waxaan ku darsanayaa maxaa la dhihi jiray waxaa rabtay ama basal shiil korka uga dar ama maxaa la dhihi jiray wax kale uga dar. waxa choice-kaaga un ku darso. haddana wakaasaa chickenkeeni hadaa ovenka gelinay iyo hilibkii iyo bariiskii intaba waa diyaar. hilibkii wakaasaa hadda nila furayaa. laftii wuu ka dhacay maasha Allah tabaaraka raxmaan. waa aragtiin juice buu dhalay. juicekaas xataa waa macaan. bariiska korka uga darsan kartaa hadaa dhacaan rabtid. hadaa qaleelkiisa rabtidna sidiisa ku cuni kartaa.
bariiskiina wakaa sabiib yar baan korka uga daray ku huuriyey hilibkii wakaasa maasha allah wuu jilcay dhaafay maasha allah mar hilibka hadduu lafta ka daadinayninba hilib uma aragko anigu ani ahaantayda wakaasa si fiican inaan i tuso baan rabaa bariiskiina wakaasa isagoo kala furfuran marka waxaan rajeynayaa inaad videogayga ka hesheen iga raali noqda haddaan hadalka boobsiinayo waa bariis waa hilib waa chicken salad cabitaan yaroo fudud maxaa la dhihi jiray iyo khudradiina ovenkay markaas igu jirtay chickenkii chips yarna waan u sameeyey markii dambe afurka la gaaray chips yaroo fresh aan u shiilay halkaasaan ku riday chipskii chickenkii waa adi cuntadii maqaaxida laga cunayo gurigaaga ku samaysan kartaa haddaad furin fiican haysatid oven fiican oo maxaa la dhihi jiray cuntada si fiican u kariya wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu